السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر بعد كلية عالمية اعتقاد. عشر كيني كوات وحنكبرنا ميديكال تكنولوجي كورس ميديكال تكنولوجي عشر كيني كوات وهرنا وحنكبرنا وحوية ميديكال تكنولوجي. ميديكال تكنولوجي وهو قيب مهم سن هذا كما رمينين وقت والبعض برنايسو عافمات أم وحيد حريرة. حدا جو تكوب عافمات حدا جو تسكول وبرت عافمات أما ضابطها واحد بقف برنا عافماتكو هديتها جامعات هديتها معادية أما anyway أحلو برتو ميديكال تكنولوجي ولا جمارمان مهمتي سجار كي يحب برسني هاي هرنا عيان كواركينا إن شاء الله كسر بعد 10 كين كوات مركم محيطها مركم ميديكال تكنولوجي مركم مقلنا محيط ميديكال تكنولوجي medical terminology. What is medical terminology؟ محيط medical terminology التعريف كود إذا قادن كرتوا language لغات of healthcare professionals أي استعمالان دتك أهلك أوه عافماتك healthcare professionals ودتك كود تخصصي أما قيب كم يبرتي أما جود أهم برتبع علمي عافماتك وحالي هذا medical terminology هدي أمتك القصي وترمس تعريف كله use it to describe لو استعمال إن لو وعد structures قاب اسمتك organs حبنها systems حبلسيدا functions شقوين كده procedures نظام مدد لو مر إنه حل الدبيو situations حالة قف كذا كده disorders حنون قف كهيا objectives وحيالها جار كثير دللا صار etc أما etc وحي لمدا تاسد كنت تعرفين كرت medical technology الويدي ميديس ده حد كنت تعرفين كرتوا medical terms كا are mostly derived from Latin and Greek وواحد جسر دري لغة لاتين كا أو يعني لغة إن عشان أقارن حد لاتين وعشان أنا عربي مركوا لغة لاتين هي جريك وأسكمد مركا لغة استعمالان كلمة داس لغة داس وين الاستعمالان okay why would you need to study the medical language محاد ugu baahan tahay marka inaad barato luqadda caafimaadka inaad barato maxaad ugu baahan tahay the health care dadka workers dadka ka shaqeeya caafimaadka and related people iyo dadka la xiriira use waxay isticmaalaan dadka caafimaad ku taqso ama dadka caafimaadka la xiriira ama xanuunada haya ama qof walba bukaanada wax walba haadane use waxay isticmaalaan medical terms erayo caafimaad to communicate si la isku xiriiro haddii dhakhtarkaani xanuun ku hayo xanuunka magaca uu bixinayo iyo dhakhtarka kale magaca uu bixinayo waa isku mid ama mid kale loo isticmaali karaa jira ama laakiin waa inuu isticmaala bishard luqad ay ku fahmi karaan medical literatures oo ah dadka qora caafimaadka ama dadka ka shaqeeya dhakhaatiirta ahaatee use waxay isticmaalaa medical language luqadda caafimaadka ama terms kalmadaha caafimaadka ay isticmaalaan it is sort of one of global medical language ee la isticmaalo dunida horumartay knowing ogaanshaha the rules shuruucda applied ku salaysan in making inaad samayso a medical term eray bixin caafimaad helps you waxay kaa caawinaysaa to interpret the long and difficult term inaad isku jahwareeriso ama aad isku dhibto eraygii dheeraa iyo eraygii adkaaba wax badan inaad sheegi lahayd سواء stomach علوش واحد دي على الحنوة for stomach H إنجليش أنا استعمال شو اللي في عنيا هذا مش حاجة سيا كريه gastritis وها ألغوسو جابشي أما واكاسا gastritis أصل ألغوسو جابشي okay let's begin مركا أم بلونه محوية مركا medical terminology سؤال ثاني سؤال هان وإناد أذيك شخصا كده مركا أردتو عشرة can you define مية قيحي كرتا electroencephalogram محليرات electroencephalogram محوية مشيكة اريا صدا can you tell مشيكة the difference فرق between أولى حياة electroencephalogram and electrocardiogram وقالك اللي جوا اريا وانا ايمان دونا ويل هدا ما نوصل بالله سؤاله كوه المشي if you break the term هذا اريا تجيبه into parts قيبه and define أتغير هذا meaning معنى of each part قيب والبا it be a lot easier بيقول فضان دونتا marka sida loo jijibiyo sida loo define gareeyo ma Allah mana khane waxaad ku baran doontaa 10 soo socda haduu ilaah kala noqdo aan ugu diin beedka kale how can we make su'aashaas waa inta la hadii marka fahantaan perfect xisaab sax la yiraahdo aad ka shaqeyn doontaan groupka oo shaqeysay soo dhigi doona how can we make sense to make it easier sen u fududeyn karna eraygaasi
breaking the term into parties is the key. Ina eraygii kala jebisaa waa muhiimadaada koowaad ama furaha aad haysato. No need uma baahnid marka to memorize whole terms ina erayda badan xifdiso ma baahnaysid haddaad taqaano sidii wax loo kala jabshe ayaa lagu bixinayaa ama jabsado ama jabsad. Divide ina kala qaybiso term erayga into components parties qaybo group inta u qaybiso waa shirada amarayso. Learn ina barato how to combine word parties sida la iskugu soo ururiyo erayada. Write inaad qorto terms down kelmadaha inaad qorto. Label diagrams inaad tusaale jadwalka ku saxnaado oo ah diagrams waxa la yiraahdo. Visualize images aragtida waxyaalaha aragtida arkayso ama qof asaalahan baartay waxa aragtay inaad kelmad u bixiso daarabto. Practice pronunciation iyo inaad soo celiso kelmadii waxaalahaas waa la huwi laga rabo inaad marto waa markaad barato cashirka labaad ee noo imaan doona. It is impossible waa laga maarmaan to memorize all the thousands of medical معقول maahan impossible معقول ma to memorize in la xifdiyo all the thousands of medical terms dhammaan kelmadaha caafimaad ee kumanaanka gaaraya in la xifdiyo macquul maahan laakiin waxa u baahan tahay inaad xalaan step aan iloobin oo ah marka to memorize whole terms, divide terms into component parts, learn how to combine word bodies, write term down, label diagrams, visual images, and practice pronunciation. خلاص هذا laga helo uma baahan ina erayada la xifdiyo. Important elements ka maxay marka medicalka hada soo galna marka kelmadaha medicalka. Root oo ah foundation ask of the term kelmada. Suffix root waa xididka. Suffix gadaal galo ah word ending eray ku dhamaado. Prefixes waa horgale waa word beginning eray ku bilowdo. Combining vowel waa xaraf oo ah marka xarafkaas o ama ay marka vowel usual o xarafkaas o wax badan ay qaban doona arki doona shaqadiisu maxay tahay dad linkskaas isku xira the root xididkan ayuu wuxuu ku xiraa to the suffix ku xiraa or mise the root to another root kale isku xira. Combining formka waa markii o wax isku xira waxa la yiraahdaa combining form qaabka isku geynta shaqalka qaab isku geynta. Combination waa isku darka of the root and the combining vowel ina isku dartay. Always read akhri meaning macnaha of the medical term terms kelmadaha caafimaad macnahooda akhri started ka bilaabaya from the suffix back to beginning of the term adoo marka qaybta dambe ka soo bilaabaya iyo dhamaadka erayga salahan endometritis waa inflammation of endometrium of uterus and uterus ka waxa loo kala qaybiyaa uterus wuxuu lahaa 3 wall oo ah 3 walls 3 gidaalood ama 3 layers 3 lakabood oo ah endometrium myometriumka oo marka endometriumka waa qaybta xuubka gudaha xiga markuu xanuun ku leeyahay xuubkaasi waxa la yiraahdaa endometritis. waa rajayna inaad fahanteen oo la dhacdeen cashirkeen labaad ee ku soo noqon doona iyo cashir qurux badan oo aad wax badan ka bedeli doono inta ku guujirto medical terminology. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.